السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta waxaan rabaa inaan sharaxaad yar aan ka bixiyo application-kan loo yaqaano CJ on style oo Soomaalida aad muddo in aad isticmaalkiisa ugu soo batay. CJ on style waa application ama website markaa laga sameeyo lacag aad u fara badan oo Soomaali badan ay lacag dhigteen ay lacag ka sameeyeen, halka dad kale oo fara badanna iyaguna ay weli ay ka cabsi qabaan inuu yahay scam, maadaama Soomaalida hore loogu dhacay website-yada ama waxaan ku yiraahdaa forex. marka cabsi weyn ay dadka ay ka qabaan run ahaantii. aniga hadda lacag ma haysan oo aan dhigto, balse commission ayaan galay. marka linkigii dad soo raacay ayaa markaa ka samaysteen ciwaan, sidaas ayay waxay u siiyeen commission. runtii waa application ama website-kan aad ayuu u faa'iidadiisa ay u badan tahay. marka la eego waxa aad qabanaysid iyo waxa aad helaysid waa wax aad iyo aad runtii aan isugu dhoweyn. maalmahan ama bilahan soo socdana waxaa moodaa in Soomaalidu aad ay u fahmeen ama ay u isticmaalayaan ciwaanada ay ugu samaysanayaan CJ on style. markii aad tusaale ahaan aad dhigato $100 markaad dhigato waxaa lagu dhufanayaa $4 yoomi waxaa qaadanaysaa $4 oo ah lacag aad u fara badan. bishii waxaad haysataa $120. boqolkaagii plus waxaa kuu fuulay $20 kuusii fuushay. bisi koowaad waxaa kusoo celinaysaa lafahaagii iyo faa'iida haysataa macnaha. inkastoo dadka qaar ay ka cabsi qabaan isku haleynta CJ on style, laakiin marka la fiirsho faa'iidadu application-kan ama website-kan uu leeyahay waa aad iyo aad waa double jibaar way dhaftay. haddii cashirkeena maanta aan u guda galno CJ on style, waxyaabaha cajiibka uu leeyahay waxaa ka mid ah, horta haddii aad u baahan tahay in ciwaan aad samaysato waxaad tegeysaa qaybta log out-ka. hadda aniga log out ayaan leeyahay, si adika idin tuso ayaan gudaha usoo gelayaa. haddii aadan hadda aniga ciwaan waan leeyahay, sida u jeedid passwordkayga iyo ay soo geliyey, waxaad tegeysaa meeshan ay ku qoran tahay register meesha ay ku qoran tahay isku soo diiwaangelinaysaa, ayaad ku dhufanaysaa. okay, hadda register aan soo tagay. meesha koowaad waxaad gelinaysaa magaca username, magacaaga saxda ma waa username. meeshan waxaad gelinaysaa password. meeshan markale waxaad ku celinaysaa isla passwordkii. meeshan ayaa meel muhiim ah. meeshan tusaale ahaan wax adiga aad gelinaysa ma jiro. hadda tusaale ahaan qofkii yacni referral linkiga kusoo siiyey, hadda tusaale ahaan linkiga haddaa kusoo dhufato meeshan wuu kusoo gelayaa. meeshan waxaa soo gelayo linkiga ani aan kusoo siiyaa soo gelayo toos asiga gudaha soo gelinayo. meeshan waxaa soo dooranaysaa waddanka aad ku nooshahay, meeshaas keliya ay siinaysaa waddankaa soo dooranaysaa. tusaale ahaan waxaa ka dhex raadinaysaa waddanka aad joogtid. hadda tusaale ahaan aniga waxaan joogaa Soomaaliya ayaa kusoo dhufsanaysaa. Soomaaliya markaad soo doorato toos ayuu soo gelinaya. meeshan waxaad gelinaysaa telephone numberkaaga. markaad geliso kadib qaybtan waxaad gelinaysaa meeshan waxa ku qoran captcha ayaad inta gelinaysaa. kadib register ayaad taabanaysaa. toos gudaha ayuu kusoo gelinayaa. hadda aniga waan leeyahay login ayaan leeyahay. marka sidaa isku soo geliso halkan ayuu kusoo sheegayaa waa kana sidana ay ku samaysataba. hadda waxaan arkay halkan ku arkaysaa waa dadkii yacni lacagaha qaadanaya, dadka lacagaha ay la baxeen. yacni islama eka lacagta, laakiin waxay ku xiran tahay qof kasta lacagta oo dhigtay ayay ku xiran tahay. marka CJ on style waxaa loo kala qaybiyaa waa 4 qaybood ayuu u kala baxaa. qaybta koowaad oo loo yaqaano Taobao ayaa la dhahaa. qaybta labaad waxaa la dhahaa Broadway. qaybta saddexaad waxaa la dhahaa Amazon, halka qaybta afraad loo yaqaano CJ on style. يعني afartan qaybood waxa ay kala yihiin. qaybta koowaad Taobao, qofka lacagta uu yar soo gashan karo waa $30 ilaa inta uu doono. qaybta kale ee labaad ee Taobao waxa uu yar lacagta soo gelinayo waa $500 iyo wixii ka badan. Amazon oo qaybta saddexaad waxa uu yar $2,000 ilaa intii ka badan. CJ on style oo levelka ugu dambeeyana waxa uu yar $5,000 iyo wixii ka badan. tusaale aniga hadda referral linkiga lacagaha aan ku helay commissionka aan ka shaqeeyay. horta markii aad soo dhigato $100
waxaad leedahay content commission. contentkaas yacni aad leedahay offer aan su-aalahan eegala offer ayaad leedahay. contentkaas offer markii aad furto waxay ku xiran tahay sintiyaashii markaasi aad ku heleed lagugu dhuftay ayaa halkaas meeshaas gelayso. sidaana waxay ku noqonaysaa balansigaagii. halkan waxaa kuusoo gelaya waa referral linkigii commissionka ka heshay, intana yesterday commission waxa aad ku heshay. meeshan waxaa waaye haddii uu jiro order markaa aad kansashay meeshaas ayuu gelayaa. hadda aniga ma jiro wax order aad kansalay. inta haddii aad iskasii akhrisana waxaa ku qoran waa every member oo ka imaaday roomkan waxa uu helayaa ama uu sameynayaa orders gaaraya 50 maalin kasta. commission purchase-kana waa boqolkiiba 26 waa dadka dhigtay yacni $100. sidaa ayay marka ay u kala badan yihiin. orderska marka aniga aan completed aan ku sameeyey ama aan dhammaystiray ayaa halkan iigu qoran. wax bending ah oo iga jiro ma jiro. wax marka inta waa complete gareeyay wax aan kansalana ma laha. runaatii applicationkan ama programkan aad ayuu u fiican yahay. waqti xaadirkan la joogo lacag wuu bixinayaa, waa la dhigan karaa, profitkiisa aad ayuu u fiican yahay. waxaan u malaynayaa in cashiro badan iyo meelo badan aad ka aragteen qaabka yacni looga shaqaysto aad ka dharagsantihiin. wixii faahfaahinay dheerna waxaad igala soo xiriiri kartaan telegramkayga aan hoos idiin soo dhigay ama CJ Honestyle linkiina aad iska diiwaangelinayaan waa idiin soo dhigay. cashirka ku xigana insha Allah waxaan soo dhigi doonaa qaabka yacni lacag loo dhigto oo lacagta sarifkeeda weliba sarifka haddii aad u baahan tahana waad ila soo xiriiri kartaa telegramka. wax cabsiya ma lahan. cashirkeena maanta intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. waxaan kaa codsanaynaa muuqaalka inaad like saarto, aad subscribe aad noo saarto channelka si video macashiro fara badan oo ku saabsan qaabka internetka lacag looga sameeyo aad nagala socotaan. aad iyo aad baad u mahadsan tahay.